Somali Football TV kusoo dhawaada ciyaartii kulad bandhigaynaa hordhaceedii Chelsea Tottenham oo lagu ciyaari doona guriga Chelsea Tottenham laacibkooda waa ka maqan Harry Kane oo sanadkan gool badan u dhaliyay su'aasha ugu weyn waxa weeye Son ma buuxinaya Harry Kane booskiisii sida kale teamka wax badan iskuma bedeleen dhexda wuxuu ku ciyaarayaa Wanyama iyo Dembele difaacana wuxuu ku ciyaarayaa Trippier, Vertonghen, Davies iyo Sanchez lameelo oo soo noqon doona number 10 ko Dele Alli iyo Eriksen. Tottenham waxay leedahay hadda 61 dhibcood waxay haysataa kaalinta afraad waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan haddii ay Tottenham badiso way ka aad bay uga goosanaysaa Chelsea oo top 4 ka waa lagu kala tegayaa. Chelsea هذا ما حل لقي فيها Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxa wadataa 56 dhibcood game kan hadii top 4 silsilada ay hesho qasbina bay soo yahay konto waxa la filayaa inuu kooxdiisi oo inuu isbedel weyn uu ku sameeyeen Christensen iyo Courtois labadaba way soo laabteen waxa dhexdana ma Fabregas oo ciyaaraya ma Bakayoko ku ciyaarsiinaya waa su'aal meesha taala laakiin waxa filayaa inuu Fabregas ciyaari doono su'aasha weyn meesha taala waxa weeyaan striker ka ku dhiyana Morata oo soo laabtay kasoo injiro hada xoogay ku maqnaa hada oo soo laabtay Morata ciyaarsiinaya ma Giroud ciyaarsiinaya ama muxuu sameeyaa sidii Barcelona uu ku sameeyay oo Faustin intuu ciyaarsiyo Fabregas uu ka dhigto striker adag weeyaan ciyaar weeyaan top football laga dagaalamaya Morata laakiin badan ma laga soo bixiyay ciyaarahan ku looga baahan yahay marka goolashiisa hadda waxa weeyaan inuu proof gareeyo oo tuso adduunyada inuu laacib yahay oo dhalin karo goolal marka loo baahan yahay هذا ما حصل لسه جامع Tottenham waa inay badiso Chelsea waa inay badiso inkastoo Harry Kane maqan yahay waxaan filayaa in ay Tottenham waxay Tottenham ku badin doonto waxaan filayaa Morata inuu gamekiisa noqon doonto oo soo caan saar doono hadda adduunyada tusi doono inuu laacib ku yahay waxaan oranayaa 3-2 Tottenham waxaan la lahaa 2-1